shan tilmaamood oo dadka guulaystay ay leeyihiin hubaal waxa ah in qof waliba guusha uu jecel yahay balse waxaa lagu kala duwan yahay wadooyinka iyo habka loo raadinayo si uu qofku u gaadho hadafka uu rabo inuu xaqiijiyo maalin kasta oo cadceedi soo baxdo wuxuu qof kastaaba u baxaa una ka lahaa siduu guul iyo horumar u gaadhi lahaa noloshiisana meel fiican u gaadhsiin lahaa haddaba tilmaamaha dadka guulaystay way badan yihiin balse waxaynu ka soo qaadan doonaa 5 tilmaamood oo ay ka siman yihiin dadka guulaystay Number 1 hami iyo hiigsi sare dhammaan dadka guulaystay waxay ka siman yihiin inay ahaayeen dad hami iyo hiigsi sare xambaarsan taasina waxay u horseeday inay riyooyinkoodii maskaxdooda ka guuxayay ee ay hiigsanayeen ay gaadhaan Number 2 dadka guulaystay waxay ka siman yihiin dadaalka kartida iyo adkaysiga taasaana guusha gaadhsiisay Number 3 dadka guulaystay waxay ka siman yihiin dulqaadku waa awoodii aad ku dhaafi lahayd caqabadaha ka hor yimaada ee daadsan wadada aad guusha u marayso waana shidaalkii ku gaadhsiinayay hadafkaaga Number 4 dadka guulaystay marnaba lama yimaadaan wax marmarsiiyo ah waa dad naftooda hoggaanka u haya oo aan marnaba dhagaysan waxyaabaha ay ku marmarsoonaysa naftoodu mana yidhaahdaan waxa ma awoodid ee mar walba waxa ay qabtaan kuna dhaqaaqaan shayga ay rabaan inay guul ka gaadhaan iyagoo marka hore baadhitaan ku sameeya Number 5 dadka guulaystay waa dad shaqo badan kamana faanaan shaqada nooc kastoo ay tahay shaqada ay qabanayaanna ma kala jarjaraan ee waa dad shaqada ay bilaabaan si fiican u dhammeeya mana shaqo waayaan ee mar walba shaqada iyo fursadda soo baxda ayay ka faa'iidaystaan waana dad barta una sii tababarta shaqada ay hayaan midda ka sii sarraysa waxayna diiradda saaraan shaqooyinka sarsare taasoo keenaysa dakhli badani inuu soo galo si ay u bilaabaan ganacsi iyo hal abuur iyaga u gaar ah si kastoo ay shaqaalo yihiin marnaba ma ilaawaan meesha ay u socdaan haddaba qodobadani waa kuwo kaa caawinaya inaad yeelato astaamaha guulaystayaasha kadibna aad noqoto guulaystaha beritoole waayo waddada yar ayaa waddada weyn ku gaadhsiisa